saaka iyo burco khayriyada magaalada burco iyo banaanbax ka dhan ah faragelinta dowladda Soomaaliya ee danaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland jawiga guud iyo dareenka shacabka reer burco eroole iyo carruur ayaa si isku mid ah ugu jawaabay xukuumadda Soomaaliya ardayda dugsiyada magaalada burco iyo dadweynaha ayaa ku dhawaaqay erayo ay ku muujinayaan dareenkooda ku aadan jiritaanka qarannimada Soomaaliland kuwaasi oo socod lug ah ku maray wadooyinka halbowlaha ah ee magaalada burco intaasi kadib dadweynaha reer burco ayaa waxa kula hadlay fagaaraha khayriyada magaalada burco mas'uuliin ay kamid yihiin wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed barasaabka gobolka Togdheer maayirka magaalada burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad xildhibaano xubno kamid ah ururada haweenka iyo marti sharaf kale ugu horeynba gudoomiyaha gobolka Togdheer Mudane Xamse Maxamed Cabdi iyo sidoo kale duqa degmada burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad gudoomiyaha haweenweynaha ururka Naaw ayaa ku booriyay in shacabka iyo dawladduba meel looga soo wada jeesto jiritaanka qarannimada Soomaaliland haddaba iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxa kamid ah hadaladoodii sida tan maanta waxaanu halkan ku cadaynaynaa oo aynu beesha caalamka urur goboleedyada dhammaan jaamacadda carabta cid walba waxaanu u soo bandhigaynaa mowqifkeenna aynu ka taagannahay go'aanka ay gaadhay dawladda taagta daran ee xamar waxaan halkan runtii uga mahadnaqayaa golaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ugu mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland go'aankii geesinimada lahaa ee ay ka qaateen heshiiska shirkadda DP World iyo imaaraadka Itoobiya dhex maray walaalayaal heshiiskaasi sida ogtihiin waa heshiis qarankeenu galay taageero meeshaada ku ekow afgooya marka soo gaadho hadal halkana rag baa u dhintay rag baa u dhaawacmay rag baa maanta burca joogo xiliyahoodii u waayey oo labada xiliyo bala jaray mataasaynu wax wadaagnaa waan ka hadlaynaa ma cid kasta oo maxay toolaa faarahayaga gashana waan ka hadlaynaa maanta waxaan halkan khudbad dheer uga soo jeedinayaa farmaajo oo ku soconaya halkii adeerkii ku socon jiray ku soconaya oo maxay toolaa aan uga diraynaa fariin adag waxa weeyaan Soomaaliland waa tii hore oo xoogaysatay maanta waa tii hore oo xoogaysatay ugu dambeyntii wasiirka arrimaha gudaha Jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland ayaa ugu dardaarmay dadweynaha iyo shacabka reer burco ilaalinta qadiyadda Soomaaliland isagoo sidoo kalena fariin adag u diray mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu dhignaa hadalkiisii sida tan ogolaano wada hadal inaynu la galno nimanka maxaabiista ee xamar lagu ilaaliyo madaxweynayaasha sheegtaan innakay ceeb inagu ahay innaka wanaag bay inaga ahayd walaalnimay inaga ahayd jaarnimay inaga ahayd niyad wanaag bay inaga ahayd islaamnimay inaga ahayd curfiga siyaasiga waa ku xaaraan madaxweyne la soo doortay madaxweyne aan cid allaaliya cid dooratay jirin oo 300 oo nin albaab hoosta loogu xidhay oo waliba lacag lagu bixiyay leeyni faraha taagtaaga inuu la hadlo marka horeba ceeb bay ahay isku soo wada xooriye mudaharaadkan ayaa ka dambeeyay kadib markii mas'uuliyiinta dawladda federaalka Soomaaliya u gudbiyeen ururka jaamacadda carabta qaraar ka dhan ah maalgelinta dekedda Berbera ee shirkadda DP World Cabdiraxmaan Ciise telefishinka caalamiga Somali Cable gudaha magaalada Burco.